waxa uu ahaa inanka keliya uu dhalay boqor Saliim waxaanu ku dhashay hilaadii xilli ay taariikhyahanadu ku sheegaan 6 November 1494 waxaanu ku dhashay magaalada Trabzon ee ku taalla xuduudda badeedka uu dalka Turkigu la leeyahay badda madow ee ku taal bartamaha qaaradda Yurub 1520 markii ay da'diisu ahayd 26 jirna waxa uu noqday boqorkii tobnaad ee boqortooyadii Cusmaaniyiinta boqor Suleymaan ibn Sultan Saliim ibn Sultan Bayazid waxa lagu naanaysi jiray Suleymaan al-Qanuuni xilligii uu ka talinayay kaasi oo naanayso kala duwan kula baxay awoodihiisa hogaamineed ee uu ku maamuli jiray boqortooyadiisa iyo dhulweynaha ay ka talin jirtay dunida islaamka waxaa loo yaqaanay Suleymaan al-Qanuuni oo loola jeedo kii ku caanbaxay ku dhaqanka shareecada iyo cadaaladda halka ay dunida reer galbeedkuna u yaqaaneen Suleymaan Magnificent ama Suleymaankii caabiska ahaa ama awoodda badna haddaba fiditaankii ay sameysay boqortooyadiisuna waxa uu ugu horreyn ku qabsaday Belgrade 1521 halka uu 1522 waa sanadkii xigay waxa uu gacanta ku dhigay jasiiradaha loo yaqaan Rhodes Islands oo ahayd halkii ay Saliibiyiintu ka soo qaadi jireen weeraradii ay doonayeen inay ku qabsadaan Masjid al-Aqsa ama bariga dhexe 1526 waxa uu jabiyay oo uu dilay hogaamiyihii boqortooyadii Hungary boqor Louis isagoona ku jabiyay macrakadii loo yaqaanay Muhakas isla sanadkaasi bilihii September iyo October waxa uu gacanta ku dhigay Budin oo ka mid ahayd magaalooyinka ugu waaweyn ee Hungary guud ahaanba waxa uu xilligaasi maamulkiisa hoos keenay wadamadii ku yaalay bariga Yurub ee loo yaqaanay Balkaniska dhinaca bari ee dunidana waxa uu awoodiisa maamul ku fidiyay Beersheba iyo Masar sidoo kale waxa uu sameeyay ciidan badeed xoog badan kuwaasi oo ka howlgeli jiray marin biyoodada ku yaala xeebaha badweynta Indian Oceanka kuwa xeebaha badda cas gaar ahaan gacanka cadmeed Hormuz gacanka Beersheba iyo kuwa koonfur bari Aasiya dhinaca kale waxa uu sidoo kale ciidan badeed xoog badan u sameeyay xeebaha waqooyi ee Afrika ee badda Mediterranean kuwaasi oo maamuli jiray marin biyoodada muhiimka ah ee ku yaala baddaasi ciidankaasi xoog badan ee ka howlgeli jiray xeebaha badda cad ee u dhaxeeya Afrikada waqooyi iyo Yurubna waxa hogaaminayay Admiral Barbaros oo loo yaqaanay garcadaagii laga bixi jiray boqor Suleymaan waxa uu geeriyooday 1566 xilligaasi oo uu go'doon ku hayay qalcado ku yaala boqortooyadii Hungary halkaasi oo ay qabsadeen 2 cisho oo kadib geeridiisii iyadoo ciidankaasina abanduulo u ahaa Sokolo Maxamed Bash markii ay ciidamada muslimiintu qabsadeen qalcadaasina waxa uu meydkii boqor Suleymaan loo qaaday dalka Turkiga iyadoo lagu aasay madxaf lagu magacaabo Sinan oo ku yaala masjidka loogu magacdaray boqor Suleymaan ee ku yaala magaalada Istanbul oo ilaa waagaasi ahayd caasimadii boqortooyadii Cusmaaniyiinta haddaba boqor Suleymaan al-Qanuuni oo muddo 46 sano ah ka talinayay boqortooyadii Cusmaaniyiinta waxa uu awoodiisa maamul gaarsiiyay halkii ugu sareysay isagoo laba jibaar ka badan dhulkii aabihii furtay muddadaasi ku dhow qarniga barkii ee 46 sano waxa uu horseeday boqortooyadii Cusmaaniyiinta ee maamulayay ilbaxnimo iyo xadaarad oo cajiiba taasi oo ilaa iminka ka sii muuqato asaarteedii dalkaasi iyo meelihii kale ee maamulkiisa u gaarsiisnaa waxaana ka mid ah waxyaabaha si lagu xasuusto Suleymaan al-Qanuuni ee weli sii taagan madaaris diini ah oo uu sameeyay xilligaasi goobo lagu talagalay dadka martida ah goobo wax lagu siiyo dadka masaakiinta iyo fuqarada sidoo kale waxa ka mid ah dhismayaasha aad muhiima sidoo kale yana waxa uu sameeyay dekado iyo goobo ganacsi oo cashuuraha ka caagan kuwaasi oo ku yaala dekadaha si kala duwan ee dalka Turkiga sidoo kale waxa ka mid ah towerka ama nuubiyada loo yaqaan geeskii dahabiga ahaa ee ilaa imka taagan ee loo yaqaan Galata Golden Horn sidoo kale waxa uu xilligiisii magaalooyinka kala duwan ee dalkaasi Turkiga ka sameeyay wadooyin iyo birisho cajiib ah oo ilaa imka la isticmaalo sidoo kale waxa uu dalkaasi ka sameeyay goobo dalxiis madxafyo dhaqan bustaano lagu nasto kuwaasi oo ilaa imka ay ku yaalaan magaalada Istanbul goobahaasi kala duwan waxa uu ugu magacdaray aabihii awooyaashii iyo xubnihii kale ee qoyskiisa boqortooyada xilliyadaasina waxa ay magaalada Istanbul noqotay mid casriyadeeda iyo ilbaxnimadeedaba ay gaadhiba dunida kale ka sheegan taasi oo ay mamnuuc ka ahayd in lagu arko qof qaxoonti ama fuqaraba haddaba ugu dambeyntii waxa boqortooyadii ballaaneed ee Sultan Suleymaan al-Qanuuni u hadhay inankiisii oo lagu magacaabi jiray Saliim kii labaad oo ugu magacdaray aabihii oo inankiisana uu noqonaya
halkaasina waxaa ku soo afmeermay nidaamkii maamul ee boqor Suleymaan Al-Qaanuuni ama Suleymaan Magnificent oo muddadaasi qarniga badhkiisa ku dhow ee 46 sano ka talinayay dunida inteeda badan ee aadamuhu degan yahay. dhulkaasi oo ku siman 3 meelood 2 meelood oo dunida ka mid ah, iyadoo ay taariikhahanadu sheegaan in nidaamkiisa maamul gaadhay guud ahaanba 3 ka mid ah 5 qaaradood ee dunida, iyadoo ay nidaamkiisa maamulun ka maqnayd 2 qaaradood ee waqooyiga iyo koonfurta Ameerika oo waagaasi aanay gaadhin xadaaradda aadamaha ee ka unkantay bariga dhexe, Afrika iyo Yurub.